Ergeyga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Iswaan ayaa saacadihii la soo dhaafay xaaladda cakiran ee gobolka Hiiraan kala hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk Jenaraal Mukhtaar iyo madaxweynaha cusub ee Hirshabelle Cali Guudlaawe. Danjire James Iswaan ayaa mas'uuliyiintaasi kula xiriiray qadka internetka waxayna ka wada hadleen xal u helidda khilaafka hareeyay maamulka cusub ee Hirshabelle gaar ahaan xiisada ka jirta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Kulamadan uu James Iswaan la qaatay wasiirka arrimaha gudaha federaalk iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Mukhtaar Xuseen Afrax iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa sida lagu sheegay aad lagu gorfeeyay talada ugu habboon ee lagu soo afjari karo xiisada salka ku haysa diidmada madaxda cusub ee maamulka Hirshabelle ee ka taagan gobolka Hiiraan. Intii uu socday kulankaasi ayaa James Iswaan carabka ku adkeeyay muhiimadda uu leeyahay wadahadal dhex mara dhammaan daneeyayaasha siyaasadda Hirshabelle si loo helo dib u heshiisiin dhab ah. Sidoo kale James Iswaan ayaa madaxweynaha iyo wasiirka u ballan qaaday in Qaramada Midoobay ay diyaar u tahay inay taageerto dadaalada lagu xalinayo khilaafka ka jira Hirshabelle. Tan iyo markii maamulka Hirshabelle loo doortay madaxweyne Cali Guudlaawe waxaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ka socday dhaqdhaqaaqyo lagu diidan yahay maamulkaasi iyadoo mararka qaar ay magaalada ka dhaceen dibadbaxyo rabshado wata. Go'aanka ugu adag oo ay qaateen reer Beledweyne ayaa ahaa in madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe uu si tegin magaaladaasi halka isaguna uu doonayo in lagu caleemo saaro doorashada Cali Guudlaawe ee Hirshabelle. Kadib waxaa Hiiraan laga aasaasay jabhad hubeysan oo saldhiggeeda ugu weyn uu yahay deegaanka Ceel Jaalle waxaana hogaaminaya sarkaal lagu magacaabo Jenaraal Xuudo oo aad u diidan madaxda cusub ee maamulkaas.